waxaan maantay ka mid ahayn wafdi oo hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Tanzania booqasho rasmi ah u yimid. booqasho rasmi ah ayaa maalinka 27 oo Sabtida inoo bilaabanaysa oo labada dowladood ay ku kala saxiixan doonaan heshiisyo saddex ah oo xukuumadda federaalka Soomaaliya khamiistii la soo dhaafay la marsiiyay. heshiisyadaasi waxaa ka mid ah heshiis dhanka warfaafinta ah, heshiis guud oo wasaaradda oo ay saxiixayso wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska, heshiis kale oo arrimaha cadaaladda ku saabsan oo maxaabiista halkan ku xiran iyo isweydaarsigooda, maxaabiis Soomaali oo tiro badan ba halkan ku xiran ayaa heshiis laga gaarayaa in dalka la geeyo. iyo heshiis saddexaad oo heshiis general oo wasaaradda arrimaha dibadda ay saxiixayso. heshiiska labaad waxaa saxiixaya wasiirka cadaaladda, kan kalena waxaa saxiixaya aniga. marka sidaas maalinka Sabtida ah maalin booqasho rasmi ah madaxweynuhu ayuu bilaabanaysaa. halkaasna heshiisyadaas lagu kala saxiixan doonaa labada dal. Tanzania qiimo weyn bay ku fadhidaa oo geeska bariga Afrika waa xuduntii iyo waxaa ku taala xaruntii EAC-ga oo Soomaaliya ay sanadkii hore ku biirtay. waana xiriir wanaagsan ayaa dowladda Soomaaliya Tanzania ka dhaxeeya. maalinta midnimada dalka Tanzania ay midoobeen Tanganyika iyo Zanzibar ayaa berri loo dabaaldegayaa. taas ayuu madaxweynuhu ka qayb gali doonaa wafdigiisu. madaxweynuhu maalinka 28 oo xaddaana wuxuu booqan doonaa Zanzibar oo iyadana maaragtay qayb ka mid ah dalkaana. marka booqashada guud ahaan ujeedkeedu intaas ahaa. waxaan rajaynaynaa in dhammaan ujeedooyinka laga leeyahay oo dhan ay xaqiijiso.